Soomaaliya waxa u soo socda wax caadi ama waxaana laga yaabaa oo arki doontaan idinkana jiilka arki doona ay yihiin in uu qofka Soomaaliga ah boqolaal qof uu isagu ugu noqdo dad ninka ma aragtay kafiil zay meesha ka intuu jecelnahay inuusan aanan noqon sida dadka kale oo aan dadka nala nool ay ahaadaan dad xuquuqdooda si fiican u qaatay aniga waxa takhasusaadkay kamid ah ta'wiil ru'ya ru'yooyinkan cabiraa in la socotaan in badan oo idin kamid ah waa ogtihiin laga yaabaa riyadu waxay ku tusinaysaa xaaladda dadka say noqon doonto ama saala socotaan waxyaalo badan oo dadka ku dhici doona riyada lagu ogaada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa juzء min an-nubuwwa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam Soomaaliya marka dhibkii ay soo martay hadda waxa la gaaray waqtigii Ilaahay uu bedeli lahaa sunanta Ilaahayga kooniga kamid tahay taasna ishaaraadkeeda idinkaaba indhihiina ku aragtaan caalamka isbedela ka dhaca uu isbedela masaadirta iyo quwadana way guurtaa marba meel bay u guurtaa saalo socotaan bari waxa jirtay cadan ninkii tago uu ahaan jiray nin adduunyada meesha ugu fiican tagay oo carabta khaliijka joogta iyo kuwa shaam jooga ay tamanin jiray iyo Soomaaliya bala tamanin jiray cadan ninkii tagay laakiin way isbedeshay waxay isu bedeshay kadib Lubnaan ay tagtay oo markii barba soo martay lixdameeyihii Lubnaan ay ahayd mataqaana Yurubtii dadka oo dhan ninkii Lubnaan aan tagin uusan waxba ahayn ama madaxweynaha ahaada ama wasiir ahaada ama kada kadib waxa soo martay khaliijka umuuman Dubai khaasatan xaaladii hadda meel kale u sii wareegaysaa indhahana waa cadiin meesha u wareegayso masdarul quwwa meesha u socdo waa dareemaysaa taas waa mid oo ah xaaladaas talabaad la socotaan aniga waxa takhasusaadkay kamid ah ta'wiil ru'ya ru'yooyinkan cabiraa in la socotaan in badan oo idin kamid ah waa ogtihiin laga yaabaa riyadu waxay ku tusinaysaa xaaladda dadka say noqon doonto ama saala socotaan waxyaalo badan oo dadka ku dhici doona riyada lagu ogaada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa juzء min an-nubuwwa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam nubuwwa macnaha ايش waxyaalaha soo socday ka warantaa ar-ru'ya جزء من 60 من 46 جزءا من النبوة أفرتني لح قيب كمذا أي رياض كم التهي إذن waxaa laga yaabaa qof inuu riyo ku riyoodo ay u waranto waxa dhici doona bacda fatratin wajiza sida sayidina Yusuf alayhi salatu wasalaam isagoo wiil yar oo riyo arkay 40 sano kadib waxa uu noqday wixii uu aabiis u sheegay mataqaana kadalika riyooyinka markii ay ma soo gaaraan xaqiiqatan Soomaaliya waxa u soo socda wax caadi ama waxaana laga yaabaa oo arki doontaan idinkana jiilka arki doona ay yihiin in uu qofka Soomaaliga ah boqolaal qof uu isagu ugu noqdo dad ninka ma aragtay kafiil zay meesha ka intuu jecelnahay inuusan aanan noqon sida dadka kale oo aan dadka nala nool ay ahaadaan dad xuquuqdooda si fiican u qaatay insha Allah bima anaga aan soo aragnay taasna waa mid labadaas arrinba waxay tusinaysaa waxa soo socda say noqonayaan